sababta ugu weyn kuna dhalisay inay noqoto dhakhtarad ayaa ah kadib markii ay aragtay hooyadeed oo la ildaran xanuun muddo sanad ah. haddaba waa tuma Dr. Saxaawe Cabdi Bilawe. Assalamu alaikum, which means I greet you with the greetings of peace. My name is Awa. Saxaawe Cabdi Bilawe. Saxaawe Cabdi is that she has shown commitment and dedication in empowering yareeyo mataqaana ayagana iscafiyaan oo Ilaahay. I realized that the woman is the leader of their society. A single mother with her 2 daughters set up a humble and small clinic in her ancestors' Dr. Saxaawe Cabdi oo ku yaala magaalada Muqdisho ayaa waxaa lagu soo kordhiyay qaybo cusub medicine in Ukraine under a scholarship, becoming Somalia's first female gynecologist. waxay ahayd u dhaqdhaqaaqa dhanka xuquuqda aadanaha. waxay ahayd aasaasaha iyo gudoomiyaha ururka lagu magacaabo Dr. Saxaawe Cabdi Foundation. waxay ku dhalatay magaalada Muqdisho bishii May sanadkii 1947. hooyadeed waxay dhimatay iyadoo 12 jir ah. sababta ugu weyn kuna dhalisay in ay noqoto dhakhtarad ayaa ah kadib markii ay aragtay hooyadeed oo la ildaran xanuun muddo sanad ah, taasoo ay ka calool xumaatay Dr. Saxaawe Cabdi. kadib waxa ay la wareegtay mas'uuliyad 4 caruur ah oo walaalaheed ah, maadaama ay ahayd canuga ugu weyn qoyskooda. aabaheed wuxuu ahaa nin aqoon-yahan ah. waxay soo qaadatay waxbarashada hoose dhexe iyo sare sanadka markuu ahaa 1964. waxay deeq waxbarasho ka heshay guddiga haweenka ee Midowgii Soofiyeed. kadib waxay culumta daawada ka soo baratay dalka Ukraine, waxayna ka qalin jebisay sanadda 1971. sanadka markuu ahaa 1983, Dr. Saxaawe Cabdi waxa ay furtay ururka horumarinta reer miyiga ee loo soo gaabiyo RHDO. shaqadu waxa ay ku bilowday hal qolkaasi oo ahaa xarun caafimaad oo loogu adeegi jiray dumarka uurka leh iyo kuwa u baahan dhalmada, weliba iyadoo ugu adeegi jirtay si bilaash ah. ugu yaraan 24 haween oo reer miyi ah ayaa lagu qaabili jiray xaruntaasi bilowga ah. muddo kadib waxay xaruntii isu beddeshay isbitaal ku diyaarsan 400 oo sariiro. burburkii kadib waxay aasaastay xarun caafimaad iyo iskuul cusub oo loogu talagalay barakacayaasha iyo agoonta. sanadda 2007 waxaa la bedelay magaca loo soo gaabiyay RHDO, waxaase loo bedelay Dr. Saxaawe Cabdi Foundation loona soo gaabiyay DHAF. Dr. Saxaawe Cabdi Bilawe ayaa si tartiib ah u ballaarisay xerooyin gargaar intii lagu guda jiray abaartii dhacday sanadii 2011. isla bartaasi ayay ku daweyn jirtay 9,000 oo qof oo dhibanayaal ah. Dr. Saxaawe Cabdi waxay ahayd muwaadin Soomaaliyeed kuna faanta Soomaalinimada iyo muwaadinimadeeda. Allah u naxariisto Dr. Saxaawe Cabdi Bilawe waxa ay calaamad wanaagsan u noqotay Soomaali badan, gaar ahaan dhaqaatiirta maanta joogta ama maanta shaqeysa, waana ruux ku dayasho mudan.